nabi maxamed alayhi salaatu wasalaam acmaal gaar ah jirta oo bishan inoo sii tilmaamay waa kuwa ugu culus ee traininka lagu qaato traininada ugu culus kow de isagu waa ramadaan waa wada garan iyada in la soomayo waa garan waxyaabaha ugu culus ee bishan la qabto waxa kamida nabi maxamed alayhi salaatu wasalaam waa bishu malakul jibriil quraanka la daraasayn jiray malakul jibriil baa u yimaada nabi maxamed iyo malakul jibriil baa waxay daraaseeyaan kitaabka alle ilaahay hadalkiisa idan bisha tanibay culimadu yiraahdaan waa bil qofka muslimkii u xidhxidho inuu ku tadabburo ilaahay kitaabkiisa fahmo ilaahay muxuu nolosha ka rabaa inaan sameeyo wa aakhir wathiqa samada ka soo degta وبنادم لو صحيه اخر هدايه absolute value بنادم كلوغو تلاغلاي نولشيسو دد انو كبلان غريستو كورن مدحوينها ودنكن اما رئيس الوزراء ودن هدا وراق كو سو درتو مالين والبعض اخرده لكن ولغا انت فهمي حل ورانيا قفتيرا خبل وحو دميين بدو كانيسا وراق adiga dantaada ka hadlaysa oo ku soo degtay oo aad gacanta ku haysato oo waliga aad akhriyayso aad fahmaynin inaan quraan dhan fahamna daaye faatixadaynu fahm weyn maalin walbana 17 jeer akhrino idan nabi maxamed alayhi salaatu wasalaam bishan wuxuu mudnaan gaarsiin jiray quraanka iyo akhriskiisa quraanka iyo daraasayntiisa walidaalka waa culimadii waaweynayda muslimiinta rakamidi hatta culumta kale ay dhigi jireen way joojin jireen imaam maalik oo soo xidhan jiray xadiiska nabiga sidoo uu dhigayo baydaan bishatan culamo badan baa cilmiga kale oo dhan joojin jirtay waxay oran jireen bishan waa bisha quraanka akhriskiisa badiyaan imaam shaafici waxa laga sheegaa de waxayna inagu hawaysaneen inuu bisha 60 jeer quraanka dhameyn jiray soo naqliya idan bishani waxa koowaad inagana waxa laga yaabaa imaamka jisku tukiyaan la yiraahdo masaajidkaas waa masaajid salaad badan oo muxuu sameeyaa jis quraan ku tukiyaa waxa la inaga rabay nabi maxamed alayhi salaatu wasalaam habeen buu salaad galay dabeetana saxaabi baa u yimid wuxuu shiris kaga xidho waa kan nabiga tukanayay waa ku xidha dabeetana nabigu alayhi salaatu wasalaam faatixadii markuu ka baxay baa al-baqara bilaabay waxaan sidii yiri kollay 100 aayadood meelaha soo akhri doona waa dhaafi al-baqara dhan buu dhameeyay buu yiri walaa 186 aayadood wala wajisiya dheeraad al-baqara dhan buu nabigu dhameeyay buu yiri haddana al-baqara marka uu dhameynayay ee sidii yiri bas dabada haduu rukuuci doona suuratu an-nisaa buu bilaabay buu yiri markaasuu yara dhameeyay buu yiri nabigu alayhi salaatu wasalaam kaasaan sidii buu yiri haduu iska rukuuci doona markaasuu al-imraan dib ka bilaabay buu yiri haddana suuratu al-imraan buu dhameeyay waa 5 jis iyo dheeraad ayuu hal ragca akhrinaya inta waxa ka mudan waliba wuxuu leeyahay aayad cadaab muusoomarin la ilaahay buu ka magan galay meel tasbiix muusoomarin la uu tasbiixsan yaani quraan la leeyahay maahan quraan lagu tadabburayo la fahmayo wuxuu sheegay laga jawaabayo waa isagoo salaada ku jira markuu tasbiixaad iyo xamdala soo maro uu tasbiixsanay markuu soo maro cadaab iyo wax lamida uu ilaahay ka magan galay markuu nimco iyo janno iyo wax lamida soo maro uu rabbigi weydiisanay hal ragco ku tukaday hal ragco ayuu 5 jis iyo dheeraad akhrinaya idan nabi alayhi salaatu wasalaam ramadaantii u dambeysay 2 jeer buu la dhameeyay quraanka daraasadiisii uu la dhameeyay kuma malakul jibriil idan bishatani waa bil qofka muslimkii u xidhxidho warbil ilaahay warkiisa fahmarta rabbi waxa uu ku sheegayo rabbus samaawaati wal ard ayaa adiga kula hadlaya bidaatik dadka quraanka marka akhrinayaan cid kale ka fikiraan cid kale ka fikirin adigu baa ilaahay la hadlaya qof walba gaarkiisa loo la hadlaya waxyaabaha bishatan وآدك وقبل جري النبي عليه الصلاة والسلام ومن المسلمين توفروا وحكم إذا قيام الليل كتراويح دا صلاة دا بدن اللي تكرينا صلاة ده بتصطو يا بالله سفروا وحكم إذا بيش التنادك اللي وجود داليه أو نبي سمين جري التصدق صدقات هنا وين إنه نروح عناوين وبدنين إنه تتكوّن وسيلنا سيدا أوجد أي صحابي محولها نبي جوحها مدق بدن ده أصليا بقى النبي عادي سواحد ولقي وحلة ويديه ما يمورن أدوب القياس qof wax la weydiiyay ma yooranin waliba dadku isku mid maaha markaan dadka bacid ka dhaxaqoonaad meelaha iska joogto cidda kugu soo beegmaysa wax ku moodaysa waa dad yar ay yaro qaraaba iyo laba saddex saaxiib ahaydeen cid kale bay wax weydiinaysa laakiin ka waran hadaa dad madaxdood tahay oo waliba aanad askar iyo cid ku ilaalisa lahayn oo waliba haduu madaxweynuhu shanta salaadood halkan inuu tukado oo cid dadka ka celinaysa aanay jirin imsa qof wax weydiisan lahaa soo qof waliba dantiisa kulama soo dhaqaaqaan isma yiraahdan waa madaxweynihi ka waran haduu rasuul ilaahay yahay rasuulkii ilaahay oo dadka dhex jooga war meel la ku maqnay oo shanta salaadood bal la arkayo oo haddana waligi wax la weydiiyaan ma oranin wax la weydiiyay an qatu ma oranin haddana isagoo sidaas noloshiisu ahay ayaa la yiraahdaa haddana رمضان وكان أجود مما يكون وحاجر في رمضان بشهر رمضان وقد بدنا بلا كلون من الليلة انتو بشهر بحيه ويكقد السنين وحبحنتي سكر ريح المرسلة بايهيد بحديثة المامية سيدي دبايل دبانيسة
dabayl babanaysa ama dhabanaysa ayuu lamid ah yani nabigu calayhi salaatu wasalaam gacantiisa way furray bisha tani waa bil markaa dadka muslimiinta ee takaaful ijtimaaci isu naxariistaan faqorada wax la siiyo masaakiinta wax la siiyo qaraabada la xidhiidhiyo tolka la xidhiidhiyo cid walba wax la siiyo waxyaabuu nabigu bishan samayn jiray waxaa ka mid ah iyadoo cibaadadiisu ay saa u badanto haddana bisha qayb ka mid ah dunidaba ka sii go'i jiray marka horeba bisha cibaada lagu jiray haddana qayb kaloo bishan ka mida buu ictikaaf wax la yidhaahda samayn jiray 10 maalmood 20 oo ictikaafku waa maxay waa inuu qofku masaajidka isku xareeyo aanu dib uga bixin ilaa lidaruura inuu ama masquul tagayo ama cunno la siinayo wax allaaliya wuxuu ka maarmi karo inuu ka maarmo albaabka masaajidka inaanu istaagin oo markaa masaajidka gudihiisa maxaa laga qabanaya dadka barba inta ictikaafka ku soo xaroodaan hurdo uun haddana hurdo looma soo xaroodo dad seexanaysa gurigaaga waad seexan lahayd waxaa loo soo xaroodaa in cibaadada la maximize gareeyo bishii waa sii dhammaanaysaaye 10 dambe inaad goosato markaa the last days baad ku jirtaa 10 maalmood ugu dambeeyana nabigu calayhi salaatu wasalaam uu ictikaafi jiray marka ictikaafku macnaheedu waa maxay xaaraan iyo baabka ka kaalaya mubaaxaadka iyo xalaashii buu ka tegay xataa xalaal ajar looga qorayuu ka tegay oo ajar ka weyn uu raadinay nabigu calayhi salaatu wasalaam wuxuu noo tilmaamay ninku gabadhiisa markuu u tago duu xalaal ugu tago ajar baa loo qoraa sidoo xadiidka nabigu sheegay laakiin 10 maalmood dambe maca dumarka waa laga fogaanaya walaa tubaashiruhunna wa antum aakifuuna fi lmasaajid baa ilaahay haweenkana ha la dhaqmina idinkoo ictikaafsan baa layidhi idan 10 maalmood calaa'iq الدنيا كلها أبو شرية وحو فسح قادنيا إن طبعا كان مع الموضوع مرت آخره قرى وكشقية حيابا بشان كبضنا النبي عليه الصلاة والسلام وحكم إذا الدعاء إلهي بريديس ولذلك بقى آيات الدعاء ده وخاصة سنة وحيكو صارت محي في وسط آيات الصوم وإذا سألك عبادي عني فإني قريب نجيب الدعوة الداعي إذا دعان آيات كاسي كدبا ولا تباشرهن وانت آيات قدام بيع اعتكاف كي كور رميا صومك آيات كي صومك كلنا وكور ريا إذا وحي دحده وجرتا محي وحي دحده وجرتا رمضان ولذلك العلماء واحد هذا وأسطان تلماميسا خصوصية بريدة إلهي لدي بشن قدهيد دبا أيها الأحبة إلهي وحين لي وأن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون كوي عذر ذاك اللسيي أيها هدنا وحل ليلي وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين مركي ليلي أيها هدنا وحل وأن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلم أدقى عذر ذار هستهدنا وحل وأن تصوموا صوم كايدين خير بدن هذا وحكرنا يسان با إلهينا ليه سبحانه وتعالى هذا أيها الأحبة وركي وحكوك وبي بشتان ديار قروغي أنه هنقض السيدة إنه إلهي يقول نقول لهين ربي وحد ملهين آخرة يقول نقول لهين تارجت كينا وقوين يسينو عذاب كيدا وقبت بادي لهين جنة إلهي ويديسان لهين وقالي لهين بشتان مركا هنقضه دال بدني وينو كان مغضى أو فإذا فرغت فانصب إلهي طاعتي سي عبادتي سيني كدال له بالكسلام نما بدني نغا مغضى ليزنس بلا إنو قادنا معها بلدتكو عاجس وان صومان يقف ولا بيرا نفتك سي بعضه إوا بلا دوبا هانتي وطبابر باد قلي سايه كوبي يتوان بلودو دنبادو سي ساهي قادان ريسا كوبي يتوان هوران دنبي قودات اسكما ريسا وبلا دو سي ساها قادان ريسو عفاريد دي وويني دي أباليسة دي بالقوسو دين دونا مركا دماتاي سايد سيقع علين لهيد هذا ترينينج ugu sii jirta ibliisaan dibku ugu duufsan lahayn iyo kooxdiisi idan hadaad bisha lafteedii dayacanto deewaad wada dayacmaysaa saawgeed buu nabigu wuxuu leeyahay man xurima khayruha faqad xurim ama aaminu leeyahay jibriil oo leh ninkay ramadaan u soo gasho fansalakh oo ay dhammaato walam yughfar lahu uu leeyahay afka ciida hadaro nabi maxamedna waa aamiin leeyahay ilaahay waxaan ka baryaa subxaanahu wa tacaala inta gaadha bishatan ee asiibtay ka faa'iidaysata ee ilaahay ugu dhawaatay in rabbi naga yeelo sallallahu alayhi wa sallam wa ala alihi wa sahbihi wa sallam alhamdulillahi rabbil alamin